sare u kac ayaa laga dareemayaa qiimaha la kala iibsado suuqyada magaalada Muqdisho kalluunka qaybihiisa kala duwan. Arrintaasi oo ay siyaabo kala duwan uga hadleen kalluumaysatada iyo ganacsatada ka beec mushtari kalluunka laga keeno xeebaha Soomaaliya. Haddaba si xog badan arrintaasi aanu uga ogaano waxaanu booqasho ku tagnay kawaanka malayga lagu iibiyo ee Xamarweyne, kaasi oo aanu kula kulannay qaar ka mid ah ganacsatada, waxaana ay noo sharaxeen duruufaha hadda ka haysta ganacsiga kalluunka iyo sidoo kale sababaha keenay in qiimihiisa uu sare u kaco kalluunka xilligan. Waxaana sidoo kale ay inoo faahfaahiyeen duruufo dhinaca agabka ah oo ay dareemayaan, taasi oo keentay in ganacsiga kalluunka uu socon waayey sidii ugu habboonayd. waxa kalluunka hadda yaraashadiisa qaaligiisa loo badbaadi karo marka oo bad furanka tahay oo badda ee kalluunka soo saarayso. macnaha dadka hadda anaga oo kaleeto aan ka ganacsano ma haysano meel aan ku keensano si aan markii malay la'aanta ee dhacda dib loogu soo celiyo wax keeda ma haysano. sideeda waa markuu batane oo badan yahana waa la daadinayaa, markuu yaraadana waa qaali. wax keeda ma jirto oo loogu baxsado marka hadda bad xirinka oo kaleeto oo dib suuq loogu soo celsho lagu gado ma yaalaan oo keedad ma haystaan dadka hadda meesha ka ganacsado. anaga waa ka ganacsada hadda aniga doonleyda ka mid ah oo doomana ii shaqeeya xilligan kala doomanka banaanka la iskaga gabiyaa dad dhifo macnaha oo boqolkiiba 30 miya ma qaan 20 baxdo bad aad boqolkii doom 20 ka baxdo. يعني ملاي عسك داقي واي مسكح يسرويان نيرفاس رويان بيرك استخا بيرك برودو dadka burada ku taalo buradu waa dhalaaliya malaayaan ablaale barna kan waxa suruuyan ilmaha يغليد ilmaha عاش أسرويان سنابر الله عسك وعنا ملايان لحس عاصو كعا ماشي أنا وماذا وقت شقستها ما فهمتي خيمة أدوها كعسيناي كيلو $5 على كذا $5 رومبين ولا $1 ما فهمت داميرين $4 شيران كان كيلو $6 على كذا. iyadoo duruufahaasi ay jiraan ayaa waxaa maamulka gobolka Banaadir dhawaan ay hirgeliyeen oo ay magaalada Muqdisho ka fureen kawaan ballaaran oo ay gacanta ku hayaan ururka iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliyeed ee Dankulmis, kuwaasi oo sheegay in muhiimad aad u weyn uu leeyahay kalluumaysatada. Kawaankana cusub kaasi oo loo dhammaystiray dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee ay u baahan yihiin kalluumaysatada Soomaaliyeed si ay ugu shaqaystaan sidii loogu talagalay. Gudoomiye ku-xigeenka iskaashatada Dankulmis oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka sheekeeyey xaruntan cusub, baahiyaha ay dabooli karto iyo sidoo kale muhiimadda ay ganacsi ahaan u leedahay, isaga oo dowladda ku ammaanay dhiirigelinta ay u sameynayso kalluumaysatada Soomaaliyeed oo u diyaar ah in ay bulshada Soomaaliyeed ka iibiyaan kalluun nadiif ah oo fresh ah. magacayga waxaa la dhahaa Cabdiraxmaan Cumar Cali Cabdiqaxooti, gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee amniga iyo siyaasadda iskaashatada kalluumaysiga Dankulmis. meeshaan markaan faahfaahin ka siiyo waa kawaankii cusbay ee laloongida dhulkiisa ee laloon dhisay oo sida aad ku aragteen social mediaha maalin dhaweed gudoomiyaha gobolka Madaala oo xariga ka jaraya waaye iyo annagoo dhan waa kawaankii oo hadda waliba diyaar u ah. maalintaasaa kawaanka la furay oo la xarig jaray. biritoolana waxaan rabnaa inaan ku bilowno kalluunkii, laakiin furaasho maalinkaas ayuuba noo furaay maadaama aan kawaan hore aan deganaynay oo shaqadu ay ka socotay. kawaankaana laloon dhisay qaabkii loo guri lahaayaan labada maalinood la soo dhaafay diyaarihaynay. shalana jimcay ahaaday, biritaan rabnaa marka inaan u soo gurnoon kawaanka ku bilowno haddii alla nafta beenan na gaarsiiyo, saasaan rabnaa. والله الحمد لله شكر كوان كان كوهر وحقوق الدنيا كوان كوهر وحال الدسي كن سجال بقولي تدبعت ميدي كوان كان وكوان هذا الدسي هدي أي نقطة لحدة بلرك لحدة كان وين هدي أي نقطة دريرك كان دير هدي أي نقطة قابك ودسيا يو قلبك وكدسيا كان عسر سن وأركيس دربيهيسا ووضع مطرل sida loo dhaqa baabuurta ama muxuu ahay waxyaabaha oo miiska la isticmaalo ama loo dhaqa oo loo tirtiraa oo loo qalajaa wixii maanta ku fariino maalin shaqada dhiig iyo wasaq iyo
isla markii galabtaba waa laga nadiifaa asoo sidii muraayad u dhalaalayaa laga hoyaa subaxina loo soo shaqo tagaa miista waa arkaysaa dhulka waa arkaysaa mutureelka saaran kulli miistu waa isku dhinac maalinta berita ah ayaa la filayaa in si toosa loo furo xarunta kawaankani iyada oo loogu baaqay ganacsatada iyo kalluumaysataduba in ay ka faa'iidaystaan goobtan loo diyaariyey in kalluunka lagu kala iibsado biri subax haddii alla raalli ka noqdo dadka malayga isticmaalo ama iibsado ama kalluumaysatada ama ka ganacsato ama kalluumaysto oo badda aado biri toole shaqadu waa noo kawaankan cusub haddii alla raalli ka noqdo waxaan rabaa qof kasta inay caawa ku jiifato oo ay ku soo kacdo in ay kawaankaas biri dhinac walbay shaqadeedu taa ay u soo shaqo tagto kaasuna laga bilaabo biritoole sidaas uu ku xiran yahay ciddii loogu talagalaa la wareegi doonta haddii alla raalli ka noqdo waa mid ka mid a tallaabooyinka dowladdu ay u qaaday horumarinta xirfadaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ay ku shaqaystaan iyada oo sidoo kalena uu jiro qorshe ku aadan in loo helo kalluumaysatada Soomaaliyeed goobo lagu kaydiyo kalluunka si loo isticmaalo xilliyada kalluunka uu ku yaryahay xeebaha Soomaaliya. Maxamed Daahir Degane, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.